قدوميها السلطة وفرض شغالها صوماليات محمد عثمان حاجي وسحر أبعدك نأوسي سين أستانتاس الصندوق عد مالين عد ميل فقراء المدحدين يكون دوران هيسان وحي موجين هيسان ودada saxa ah madaxnimo doorashada loo maray waa laga yaabaa inay hadda bilow ugu tahay laakiin wadadaas idinka iyo ururada kale oo shaqaalaha dalka meelihiisa kala jooga iyo ummadda Soomaalida oo dhan baa u baahan inay sanduuqaas ku kala baxdo oo madaxdeeda ku doorato marka tusaalaad bixiseen lagu dayan karo wanaagsan doorashada sidee wanaagsan u dhacday oo codkiina aad diibateen ونقول أنا من خاتي كناهي ومحمد عثمان حاجي ومدش قدان سوق ودي وددال بدن كنت أنقرها أيو منو يهني ددال بدن وهؤلاء عدق وقت عدق الجوتشيرو أنا من خاتي كناهي إنه كله يردي وما أرت أصاب بحي شغالها ما أرت وقت جيس ظروفت عدق وهذا الجوتشيرو أنا أقول كمرة كحين مثلا واحد ينكو هم بليانية وحن ربا سيجارة inaan ugu hambaliyeeyo ugu bogaadiyo gabdhaha Soomaaliyeed oo shaqaalaha ah oo si firfircoon codkooda u dhiibtay oo ayaga iyo walaalahood oo rag iyo isbarbar socda xuquuqdoodii ay u lahaayeen madaxdooda inay doortaan si cadaan ah u soo baxay shaqadana saasay ugu fiican yihiin guriga saasay ugu fiican yihiin cod bixinta saasay ugu fiican yihiin أبابلك برشة اللي أبابله يساسا يوفي عيهين وصلك أو هوانك وصلك هو سوماليا يكون إلى كنتي هم مرنت سوماليا وحيكون حرن تاعي كارن تاوانك سوماليا كقاطع محمد هذا الكي مركي لا دورتك بعد يجري وان سود وين إياه وأها عنك شغل حتى بلابيا قل كان ما أنت كشرنه أيان شغل بلابيا وديدي بان قبنا هنا هذا هوش بان قلينا marka hawshaas waa tilmaan fiican waaye inuu haddaba shaqo diyaar u yahay gudoomiye waxaan ku hambalyeynaa doorashada laakiin waxaan ku faraynaa inaad shaqo u soo joogto 4 sano hore tababar kugu ekaato maanta laga bilaabo hawl ha ku bilaabato hawl muuqato oo la taaban karo rag halkaan ka hadlo khiyaarta ah waa sheegeen dhibaatada shaqaalaha Soomaaliyeed lagu hayo rag xoogaalku agaasimayaasha waxyaha jooga waa ogyihiin anagu waa ognahay cid walba way ogtay dulmiga yaala Soomaaliya oo shaqaalaha lagu hayo horumarka la gaarayo horumarka muuqda oo xagga dhaqaalaha dadka laga sameeynayo oo shirkadaha gaarka ay sameynayaan lacagaha badan oo la sameeynayo daaraha badan oo la dhisayo warshadaha badan oo la sameeynayo waa xoog shaqaale dadka shaqaalaha xooggoodii way dhididkoodii way waxa dalkan ku socdo dadka baabuurta quraha badan oo la wato daaraha fooqyada oo la dhisayo xooga shaqaalaha Soomaaliyeed baa u dhisayeen misna xuquuqdooda ma helaan dulmi weyn baa jira dalkan ka jira oo xadgudub badan baa ka jira markii dawladii dhexe burburtay oo xuquuqdii shuruucdii shaqaalaha lagu maamulayay oo lagu ilaalinayay xuquuqdooda markii ay meesha ka baxday waa laga faa'iideystay oo dad dambiilayaal ah oo dhiig miirata ah ayaa is urursaday oo ka faa'iideysanaya kala go'aad ku dhacay shuruucdii dalka ilaalinaysay iyo awoodii dawladnimada oo dhiciiftay hay'adaha ka faa'iideysanaya ayaa dulmi weyn shaqaalaha ku haya waxaan ka rajaynaynaa maxamed iyo xogayaha guud oo hadda ballanqaad muujiyay oo yiri dagaal baan gelayaa shaqaalaha xuquuqdooda aan ku soo celinayo inay kaga dhabeeyaan oo shaqaalaha Soomaaliyeed waa dulman yahay xuquuqdooda ay u doonaan waxaan rabaa inaan kula dardaarmo maxamed iyo xogayaha guudba halkaan waxaad joogtaan xaruntii Soomaaliya joogta mas'uul uma ahdin kaliya isu taga ururka shaqaalaha Soomaaliyeed oo halkaan jooga waxaad mas'uul u tihiin oo xilka la idinku dhiibay shaqaalaha Soomaaliyeed oo dhan ma kala qaybsana xuduud ma kala laha waxaa mideeya xooga shaqada ay ku shaqaysanayaan waxaa mideeya muruqooda iyo maskaxdooda oo ay wadaagaan ama xamar ha joogo ama magaalo kale ha joogo shaqaale waa shaqaale horumarkooda waxay ku gaari karaan waxay ku xoroobi karaan waa midnimo iyo abaabul waaye haddaad abaabuluntaan oo shaqaalaha abaabulsho oo midayso
وعدكوda midayso ma qarsoomahayaan dadka madaxda waa sacab mugiis waa yar yihiin awood hal haadeen lacag haysteen ciidamo ha wateen laakiin tira ahaan waa kooban yihiin xooga badan oo wax dhisaya oo horumarka keenaya oo Soomaaliya ha ahaato ama dibadda ha ahaatee waa shaqaalahana waxaa la rabaa in xoogiisana laga faa'iideysto xuquuqdiisana la siiyo marka waxaan ku faraynaa maxamedow adiga inta kula shaqaynaysa ballanqaadkii maanta aad samaysay inaad kaga dhabayso oo shaqaalaha Soomaaliyeed aad muujisto xuquuqda ay leeyihiin soo saarto oo aadan xamar isku koobin ee shaqaalaha Soomaaliyeed oo dhan codkaan uu gaaro oo ay ku daydaan oo madaxdooda abaabulaan isdoortaan oo ay soo baxaan wax badan baad ka maqlayeen hawada wax badan baa la idin tabahayay wax badan baa codkiina la tabahayay haddaad maanta banaanka u soo baxdeen ismuujiya oo kuwa idinka maqan u yeerta oo soo baxa awoodiina lama dhamma awoodiina la haddaad ismuujisaan is abaabushaan ciidina isma kin hortaagi baryana maaha xuquuqda shaqaaluhu barya maaha waa xaq aad leedihiin barya maaha laakiin waxay ku xiran tahay abaabul bay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay hoggaan bay ku xiran tahay haddaad is abaabushaan oo muuqataan ciidina idinma hor joogsanayso waxa caymisku wuxuu la maqan yahay waxa xuquuqda shaqaaluhu la maqan tahay waxa saacadaha saa'idka loogu shaqaysanayaa waa kala daatanaanta shaqaalaha waa midnimo la'aanta shaqaalaha midnimo sameeya urura codkiina isu geeya madaxdiina ka dambeeya ku taageera ismuujiya Soomaali waa idin sugaysaa soo baxo ismuujiya waana mahadsantihiin